ma qalbi jabi doontid mar kale. Noloshu waxay kula kulansiinaysaa dad badan oo isugu jira kuwa naftaada ku soo kordhiya farxad, kuna muujiya qiimaha aad leedahay, sidoo kalena ku soo kordhiya noloshaada waxyaabo badan oo aadan horay u aqoon. halka sidoo kale noloshu kula kulansiinayso dad isku sheega inay yihiin kuwa aad kuu jecel oo aad agtooda ku weyn tahay. kadib markii ay arkaan inaad tahay qof u daacad ah oo iyaga isugu dhiibay si dhammaystiran, ayay bilaabaan inay burburiyaan qalbigaaga una dhaawacaan si joogto ah, iyagoo mar walba ku marmarsiyooda inaysan xumaan kula damacsanayn oo ay dhoorayaan qalbigaaga, balse dhaawacyada joogtada ah ay kuu gaarsiinayaan si maalinla ah waxay isugu jiraan erayo iyo ficilaba. sababta ugu weyn oo ay kuu dhaawacayaanna waxay tahay adiga ayaa noqday qof miskiin ah oo u daacad noqday 100%. sidaasi darteed ayay kuula jecel yihiin inay ku dareensiiyaan mar walba dhaawacyo iyo bahdilaad joogto ah, waayo waxay ilaawaan inaad tahay qof qalbi jilcan oo aan xamili karin dhaawacyada qaar. waxay iloobaan inuu aad kuu xanuunayo qalbijabka ay kuu geysanayaan. waxay iloobaan inaadan mudnayn dhaawac iyo bahdilaad, balse ay ahayd inaad ka hesho daryeel iyo farxad gelin. balse qaladku ma lahan dadkaas, waayo adiga ayaa ugu kalsoonaaday una jeclaaday in ka badan intii ay kaa mudnaayeen. waxaad u hibaysay naftaada oo dhan, waxaad ka dhigtay dad garab kuu ah, weliba ayagoo aan kuu soo jeedin. sidaasi darteed ayay kugu heleen si fudud oo wax qiimo ah lama lihid adiga ayaa aad u wanaagsan oo wanaagga ka badiyey. soo ma ogid ubaxa marka lagu waraabiyo biyo badan inuu dhinto? sidaasi si la mid ah dadka qaar marka aad ka badiso danaynta, daryeelka, ka fikirka, wanaagga, jacaylka iyo farxadda, inay isku arkaan inay yihiin dad kaa mutaystay, balse iyaga aadan ka mutaysan adiga inay ku siiyaan intii aad u hibaysay in ka badan. haa, waa sidaas xaqiiqda dhabta ah ee jirta. dadka qaar wanaagga wuu dhibaa oo way ka cararaan, waxayna ka doorbidaan xumaanta iyo qalbijabinta, balse waxay iloobaan dunidan inay tahay harka labadiisa gelin, oo qof walba uu la kulmi doono qof ka aarguda si ka xanuun badan dhaawacyadii uu u geystay qof kale. waana ballanqaadkii Alle kuna dhisan nolosheenna. sidaasi darteed waxaan ku leeyahay ku faan inaad tahay qof qalbi wanaagsan oo inuu qalbi dhisa mooyee aan qalbi dhaawacin. ku faan inaad tahay qof Alle uu siiyey qalbi dareen wanaagsan oo aad u naxariis badan. ku faan inaad tahay bangiga laga helo jacaylka iyo daryeelka, waayo dadka adigoo kale ah way ku sii yaraanayaan dunida. ku faan inaad wanaajisay dadka aan u qalmin wanaagga ee keliya lagu abaalmariyo mid la mida xumaantooda, balse adigu aad ka doorbiday si kastoo ay kuu dhaawacaan adiga inaad noqotay qofkii sarreeyey ee wanaagga ugu beddela dhaawacyadooda iyo qalbijabintooda. ku faan inaad tahay deeqsi bixiya danayn, jacayl dhab ah, farxad gelin, daacadnimo, rajo wanaagsan, dhiirigelin iyo wax kastoo qiimo u leh nolosha qofka adduun iyo aakhiraba. ku faan inaad tahay oo aadna ahaan doonto weligaaga qof aan marnaba jilin nolosha ee ku nool xaqiiq iyo dhab ahaansho, wanaajiyana cid kasta oo ku soo biirta noloshiisa oo aan marnaba la damcin xumaan iyo qalbi jabin inuu wanaajiyo mooyee. ugu dambayn, si ay u yaraadaan qalbijabkaaga iyo dhaawacaaga, yaray ka filashada dadka inay kuu wanaajiyaan sida aad u wanaajiso oo kale, oo xad u yeel wanaaggaaga. iskuna day inaad ka maaranto qof kastoo ka maarmay naftaada. waxaadna dhahdaa mar walba alxamdulillaah, oo marnaba ha ka shalaayin qalbi wanaagsanaantaada, daacadnimadaada, adkaysiga iyo kartidaada.
way jiraan dad wanaagsan oo adigana ku wanaajiya kuu dhowra sida aad u dhowrta oo kale dareema waxa aad dareento garab iyo wehel kuu noqda ku ilaashada si aadan uga niyad jabin kuna qira qiimahaaga oo aad kuu weyneeya mar walba aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka mahadsanid